sharikada caalamiga ah ee xawilaadda lacagaha ee Well Remit ayaa ku dhawaaqday daahfurka adeega xawaaladda ee Soomaaliya. Well Remit oo ah sharikad hogaamisa lacagaha la isugu diro dhinaca tiknoolajiyadda ee digitalka ayaa waxay ka howlgashaa in ka badan 50 wadan oo lacagaha ay ka soo xawisho, waxaana xawaalad muhiim ah ay u tahay oo lacagaha ay u dirtaa in ka badan 150 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay. agaasimaha sharikada Well Remit ee qaabilsan dalalka Itoobiya, Djibouti, Somaliland iyo Soomaaliya, Ahmed Cismaan Tani ayaa tafaasiil ka bixiyay adeega xawaaladeed ee cusub ee Well Remit ay ugu tala gashay inay kaga howlgasho Soomaaliya. Shirkadda caalamiga ah ee Well Remit waxay daahfuraysaa adeegga xawaaladeed ee Soomaaliya. Shirkadda Well Remit oo hogaamisa lacagaha la isugu diro dhinaca digitalka ah waxaan ka soo dirnaa in ka badan 50 wadan, waxaan u soo dirnaa in ka badan 150 wadan oo Soomaaliya ku jirto. waan ku faraxsanahay inaan maanta daahfurna adeegan oo u sahlaya Soomaalida qurbaha ku nool ee ku kala nool kontonka gobol ee Mareykanka, Australia, Canada, Europe iyo New Zealand inay lacagta si fudud ugu soo diri karaan ehelkooda iyo qaraabadooda ku nool Soomaaliya, iyagoo oo Soomaalida halka joogtaana ay ka qaadan doonto xawaalada dahabshiil oo ah xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalida oo ku leh 200 oo laamood in ka badan. waxaan dhawaan iyadana daahfuri doonaa adeega mobilka in lacagta lagu qaadan karo oo loogu soo diri karo Soomaalida qurbaha ku nool oo lacagta ku soo dirsan jirtay hababka ku salaysan lacag qabashada wakiilada oo baryahan dambe wiiqmay saameyn weyn oo ku yeeshay xanuunka COVID-19. xawaalada Well Remit oo fidisa habka digitalka ahi waxay meesha ka saartay gacantii dhexe kaas oo u fudaydinaya qof kasta oo Soomaaliya inuu lacagtii si sahlan oo fudud oo aamin ah ugu soo dirsan karo xilligu doono isagoo gurigiisa jooga qaraabadiisa iyo ehelkiisa Soomaaliya ku nool. haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah fadlan booqo mareegtayda shirkadda Well Remit www.wellremit.com ama soo dejiso barnaamijka aaladda telefoonka ee Android-ka ama iOS-ka ku shaqeeya si aad maantaba lacag u soo diri karto oo ugu soo diri karto Soomaaliya. waad mahadsantihiin. sida laga soo xogtay bangiga adduunka, qiyaastii 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa Soomaaliya sanad walba waxay u soo martaa dhinaca xawaaladaha, iyadoo markaas ay soo diraan qiyaastii dad gaaraya 2 milyan oo qof oo qurbaha ku nool. lacagtaasi la soo xawilo ayaa waxa 23% ay ka tahay wax soo saarka guud ee wadanka Soomaaliya, waxaana kaalin muhiim ah ay kaga jirtaa horumarka iyo nolosha dad badan oo Soomaali ah si ay u helaan cunno, hoy, waxbarasho, adeeg caafimaad iyo sii dardargelinta ganacsigooda yaryar. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.